والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولسونكي وانكد حجرنا ولو أوجب إيمانه وقدم بيه وداع انتها آنو مرينو. إلهي سبحانه وتعالى نمعوين سو كمد أها صونكا دار شلي وانسود دويني مانتنا ووداعينينا. ويا إلهي وكتل مامي أيام معدودات مال ملتري إنو مركايهي wax kasta oo la tiriyana saasay u tabaryar yihiino marba waa dhamaanayaan. inta dhiman aad iyo aad ha loogu dadaalo, baqayada dhiman aad iyo aad ha loo qiimeeyo, soonkana si fiican ha loo wadaaciyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha laga baryo in soonkan aan soonay oo naga aqbalo subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, soonku mar allaala markuu saanoo kale gabagaba u yahay waxaa noo bilaabata inaan bixino zakaadka lagu magacaabo zakaatul fitriga, kaasoo soonka waqtiyadiisa la bixiyo. zakada fidrada ah ama daqarsoonka dadka gobol kamida ay u yaqaaniin ayaa waxaa loo baahan yahay bixitaankeeda in markaa la bilaabo. waxay waajibaysaa habeenka ciidda la sheego. waxaa fadli badan maalinta salaada subax ee ciidda la tukado ilaa salaada ciidda laga tukanayo inta u dhaxaysa in la bixiyo. waayo ciidan ciidul fitriga salaadeeda in yar waa la akhiraa oo dib baa loo dhigaa si loo helo wasci iyo waqti waasica oo ay dadku ku bixiyaan zakaatul fitriga. ama ciidda dambe soo socota haddii rabbi yiraahdo. markaan gaarnaanu ka sheekayn doonaa ciidul adxaade in yar baa la soo dedejiyaa si ay dadku fursad u helaan salaada kadib inay xoolahooda gowracaan, hilbihiina markaa la cuno. labadaa ciid ayaa ilaahi subxaanahu wa tacaala na siiyey. marka ciidan ciidul fitriga lagu magacaabo zakada fitrada ayaa gabagabada soonka la bixiyaa. ilaahay baa tilmaamay oo yiri walitukabbiru al-idda walitukmilu al-idda walitukabbiru allaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. soonka maalmaha idin dhaafay sababta loo dhahay la soo qadeeyo waxay tahay si tirada loo buuxiyo. haddii soonku 29 uu ku dhammaaday 5 maalmoodna ay kaa tagto 5 ay kaa dhiman tahay, dib ka keen si ay tirada u buuxsanto iyo walitukabbiruullah in ilaahay aad weynaysaan, takbiirta ciidda aad qaadaan, allahu akbarta aad badisaan, wala'allakum tashkuruuna waxaad mudantiin markiinaad ilaahay u mahad celisaan bacdamaa soonkiidin soo gaarsiiyey. zakaatul fitrigu waxaa loogu talagalay in tucmo looga dhiga iyo quud dadka masaakiinta ah. maalinta wareegsiga iyo dawarsiga iyo tuugsiga ka deeqa, ha idinla ciidaano. dad waxaa jira maalin walba risqigooda ka raadiya ummadu inay ku dhex wareegaan. waa maalin ciid ah, ha u dhibgelinina inay ummadu gacmo hoorhoorsadaan ee ka deeqa dadka masaakiinta ah maalinta waa wareegsiga oo wareega iyo tuugsiga, iyo inay u noqoto wax lagu nadiifiyo, lagu dhabaandhabo, boorka iyo wasaqdana looga qaado, laqwiga iyo rafadka soonka idinka gaaray. taana way naga tirtiraysaa zakaatul fitriga. rasuulku wuxuu ku farad yeelay qof kasta oo muslim ah, ama adoon ha ahaada ama xor, ha ahaada saqiir ama kabiir, ha ahaada rag ama dumar, intaasoo dhan oo muslimiinta ka mid ah zakaatul fitrigu inay markaa bixiyaan. saac oo timira la bixinayay, ama saac shaciir ah, ama aqidka bahalka lagu magacaabo caanaha la fadhiisiiyey ee caana booraha ah iyo wixii markaa la mid ah oo raashin u noqon kara. dadka waxaa inta badan la bixiyaa beledka aad ku nooshahay risqiga ummadu aad uga jecel yihiin. raashinka sida fiican ama sida badan ay dadku markaa isticmaalaan ee qaalibka ah. saasaa marka la rabaayo waa in la bixiyaa waqtiyada hadda aan soo tilmaannay. soonka dhammaadkiisa markay maalin ama 2 maalin ka dhiman tahayna fuqahadu way ogolaadeen in la sii horumarin karo. saxaabaduna qaar baa samayn jiray.
haddaba aad iyo aad ha loo dadaalo. Zakaatulfitriga ha la bixiyo, dadka masaakiinta mudanna ha la siiyo. xilligaasana markaa la bixina ee aan markaa soo tilmaanay. Zakaatulfitrigu fadli aad iyo aad u weyn buu leeyahay. mufasiriinta qaar baa waxay dhaheen qad aflaxa man tazakkaa wadakara isma rabbihi fasallaa. waxaa loola jeedaa waxaa liibaanay qofka zakaadkii fitriga bixiyey. qad aflaxa man tazakkaa haddana wadakara isma rabbihi rabbigii magaciisa xusoo subxaana allahi yidhi. takbiirta ciidda akhriyey in badan ku celceliyay ilaahay magaciisa. fasallaana waxay leeyihiin waa salaada ciidda. xaaladda noocaas oo kale ah ayaa markaa loola jeedaa. zakaatulfitrigu waa shay aad iyo aad u qiimo badan. masaakiinta ha la siiyo quudka ugu badan ee wakhtiga beledka laga cunana ha la bixiyo, suu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam, si aan thawaabtiisii ajirkiisa u helno. zakaatulfitriga marka laga gudbo ciiddii baa loo dareeraya. walaalayaal waanu ciidaynaa kordhow. mar allaala marka ciidda la gaaro muslimiintu waa inay ciidaan. ciid laba ah ayaanu leenahay haddaan muslimiinta nahay. ciid labadaa ka soo hartoo naloo jideeyeyna ma jirto. sidaa darteed baa labadaa maalmood ama labadaa ciidood rasuulku markuu madiino soo galuu arkay ehelkeeda oo ciyaaraya. waa maxay buu yidhi? waa laba ciid ama laba maalmood oo ay ciidaan. allah noogu bedelay laba maalmood oo ka khayr badan. waa ciidulfitri iyo ciidul adxaa oo carafada noo imaan doonta haddii rabbi idma subxaana wa tacaala. labadaa ciidood waa laba ciid oo aanu leenahay. labadaa ciid waa in la muujiyaa. labada ciidood waa ciido cibaado loogu talagalee ciido ciyaar iyo waala loogu talagalay. muusig iyo heese in ummadda lagu maaweeliyo loogu talagalay ma aha. dadka muslimiintuna aad inay uga faa'iidaystaan ciidda, takbiir iyo alla ka cabsiyo cibaado iyo farxad la muujiyo waa shay muhiim ah. amaa idaacaadka iyo meelaha kale telefisyonaadka ah ee dadku ay intay salaamo kusoo dalbadaan kabacdina muusig iyo heesa loo saaro waa shay mamnuucun diinta islaamka ogolayn. xaaladda noocaas ha layska daayo. ciiddeenu waa ciid qiimo leh, waa ciid cibaado ah. waxaad ka fahmaysaa labada ciidba mid kastoo ka mida waxay timaadaa oo ay dhacdaa marka la guto rugni tirarka islaamka ka mid ah. ciidan hadda aanu ku jirnay noo imaanaysaa. waxaanu dhammaynay soonkuna waa rugni tirarka islaamka ka mid ah. kadib bay dhacdayoon ciidnay. amaa ciidda xajka ilaah wuxuu nagu jideeyey maalinta tobanaadka in la ciido. waxaa laga soo baxay maalintii sagaalaadka ahaa alxaju carafa. waa rugni ka mida tirarka islaamka. xaggee muusig ka soo gelayaan, xaggee heese ka soo gelayaan, hobalad iyo mid wax maaweelisana xaggee ka soo gashaa? waa maya. ilaahay aad in looga cabsado way fiican tahay. idaacaadka inay rabbi ka cabsadaan waa shay muhiim ah. kuwa tviyada inay rabbi ka baqaan waa shay muhiim ah. ummadii soo soonnaa dhagahooda xumaan ha ku furina, waxyaabo xumaan ha ku samaynina. wax badanna ilaahay oga baqa subxaana wa tacaala. waayo labada ciid waa ciido cibaado ah. qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayrun mima yajmacuun. waa dhibaatooyinka maantana haysata. dad baa soo dalbada oo odhanaya hees hebel hana loo saaro, fanaanad hebel baan u baahannahay. aaway soonkii lasoo soomay? aawa alla ka cabsigii? wixii rabbi loogu dhowaaday subxaana wa tacaala? xaaladaas aad ha laysaga ilaaliyo. ciiddu mar allaala marka ay timaado waa la qubaysanayaa walaalayaal. maalintii qofku waa inuu ka farxiyaa caruurtiisa, waa inuu ka farxiyaa xaasaskiisa. wax allaala wuxuu kari karo oo dahab ah, oo dhar ah, oo asluub wanaag ah, oo diinta islaamku qabto, oon israaf iyo xadgudub ku jirin in looga farxiyo ubadku waa shay muhiim ah. qaad yaan lagu cunina ilmaha ha la siiyo, yaan lagu tasarufina ilmaha ha la siiyo. si fiican ha loo ciido, rabbina ha la baryo subxaana wa tacaala. subaxii ciidda marka la gaaro, ciidan aanu ku jirno qurac baa la cunaa, afkaa wax la gashtaa, timir iyo tiro isdheer ah yuu rasuulku cuni jiray sala allahu calayhi wasalam intuusan ciidda u dareerin. amaa ciidda lagu magacaabo ciidul adxa ee noo imaan doontaa ayadu wax lama cuno, si loo muujiyo in hadhow inta la soo tukado xoolihii la gowraco, beerkii hilibkii lagu quracdo. saasaa markaa loogu talagalay. amaa midaan waa in la muujiya inaan la soonayn oo la quraacdaa kadibna ciidda
ciida la aado gabadhi saxaabiyada waxay tiri rasuulku wuxuu na amri jiray inaan gabdhaha xuyadka caadada qaba aan soo bixino kuwa dawaatul qudaraadka waa kuwa maqabiyooyinka ah walow naaqab maqabiyaysan jirinba shaaracasay kaaga horeeyaan suuq ayagaa wada dhooban bas haddaad raacdo 1,000 hadday yihiin 1 waa ayagu meel kastay garabka ummadda ku hayaan bannaankayba baxsan yihiinba ama nebigu wuxuu amri jiray kuwa maqabiyooyinka la soo bixiyo kuwa xaydka qaba kuwa cawaatiqda shaqada guri bannaanka laga xoreeyay waa dumarka astaanta naaganimada ama dumarnimadu ay kasoo baxday kasoo muuqatay guriga la joojin jiray kuwa inaan soo bixino dacwada muslimiinta iyo ducada iyo barakada maalinta ay ka qayb qaataan kuwa xuyadka caadada qabana meel muctazili goys ah iyo iska fariisanayaan way takbiiranayaan barakada maalinta inay helaan baana la rajaynayaa in la qubaysto waa muhiim dharka la heli kara ugu qurux badan in la labisto catir in la marsado ragga qaas ahaan dumarku waa inaysan catari barfuun bannaanka kula soo bixin waa inay soo qaataan jalaabiibyo jalaabiib haddaysan haysan seen yeelnaa gabadhii rasuulka weydiisay hadday saaxiibada ama walaasha labay haysata mid ka soo qaada buu yidhi dharkan isku dhegan astaanta dumarnimada bannaanka soo bixiya dharkan aad mooda dharkii shaytaanka ee dumarku ciiday ku imaanayaan ilaahay ha looga baqa subxaana wa tacaala in gaari aan la soo raacin way fiican tahay oo inta lug lagu yimaado lugna markaa lagu laabto dembise ma aha haddaad carruurtaadii xaaskaaga gaari ku soo qaadato meel dheer aad ku soo dukataan mashaakil kuma sugna laakiin sida fiican nebiguna samayn jir waa in lugaha lagu socdo lagu dareero jidkaad martay ma ahee jid kalaa la soo maraa maalinta ciidda marka ciidda la soo tukado ilada la salaama carruurta laga farxiyaa wixii la siin karaa la siiyaa jaarka iyo deriska waa la isku hambalyeeyaa waa la isku duceeyaa saasaa loogu talagalay habeenadii mararka gobol kamid ah show music la sameeyaa waxyaabo kala la dhigaa ha aadina oo rabbi ka cabsada subxaana wa tacaala bacdama shaytaankii xaragga laga soo furay intaad xakameyn kartaan xakameeya intaad masaajidka ku jiri jirteen in ka badan ku laazime intii xumaanta la joojin jiray in ka badan ciidda ha la laazimo waa shaytaankiina wuu soo baxay wax walbo shaytaanul insi iyo jinnina maalinta aad bay u soo firxadaan rabbi inuu naga badbaadiyaan ka rajaynaynaa wax badan hal la dadaalo taacada iyo diinta hal la xoojiyo ummad ilaahay subxaana wa tacaala dartii u soontay aanu noqono yaana noqon dadkii ama islaantii doqonta ahaydee sooha intay falkisay ay samayso caawo dhan maalintii furfurta ama maantoo dhan intay soohdo habeenkii furfuraysa saa yaa la noqon insha allahu tacaala ciidana sidii loogu talagalay ha loo ciido zakaatul fitrigana xaaladaysu waa saase saaha loo bixiyo khayrkii wanaagaha lagu dadaalo waxa noogu xigi doona waa 6 shawaal iyo 6 maalmood ee bisha shawaal ee soonfur maalinta ciidda ka bilow ku xigta maalinta ku xigta ka bilow ilaa bishu ay ka dhamaatay la soomi lahaa taana darsiga baritaan u dib dhigan doona haddii rabbi idma subxaana wa tacaala ilaa xaqas waxaan ka baryanaa inuu xaqana waafajiyo taacada iyo diinta allah nagu sugo uma taacada iyo khayrka jecel cibaadada jecel akhrinta qur'aanka jecel soonka jecel ilaahay ha naga dhigo wabillahi tawfiiq wallahu a'lam.